maanta waxa weeye waa fulintii in la fuliyo aanu gaadiid bala cashuuri socon karin oo la xareeyo waayo soo dhamaatay digniinihii iyo ganaaxyadii marka maanta waa fulin baanu halkan u taaganahay in la fuliyo haddii alla ka dhigo dhammaan gaadiidleyda aan cashuurnayn ee wadanka ku jirta gobolka Togdheer waxaanu faraynaa adigoo aan lagu soo qasbin adigoo xorriyadaada haysta inaad soo cashuurto gaadiidkiina priority aynu saarayna waxay noqonayaan imika cashuurta liisamada iyo cashuurta kala wareejinta ayaynu u baahanay inaynu imika dardar gelino oo hawshoodii la bilaabaya hawshaas waxaan dadweynaha ka codsanaynaa in gacan lagu siiyaan nootayooyinka digniintii ugu dambeysay baan maanta aan u bixinaya waxa weeyaan cidina waxba ma iibsato haddaanay nootaayo kala qoran laakiin taas sharci maaha haddaan cashuurtii la bixin haddaan gaadhigii la kala wareejin haddaan mulkiyaddii guriga la kala wareejin oo intaba ay cashuuri ku waajibayso iibkaasi ansax maaha waxaan dadweynaha u sheegayaa nootayooyinkay tegayaan ee ay wax ku kala iibsanayaan inaanay warqaddaasi sharci u noqon doonin buuggii gaadhiga iyo mulkiyaddiisii ha la wareejiyo waxaanu da'furaynaa mar labaad dardargelinta dakhliga gaadiidka iyo isku hubinta sharciga gaadiidka taasoo socon doona inta sanadka ka hadhayba socon doona insha Allah bismillaah kariim marka xigta waxaan soo dhaweynaynaa mas'uuliyiinta wasaaradda horumarinta maaliyadda ciidanka ilaalinta cashuuraha iyo wasaaradda gaadiidka ee kormeerka inagu yimi waxaan leenahay saaxiibayaal ku soo dhawaada gobolka Togdheer aad iyo aad baan idin soo dhaweynaynaa shaqaale ahaan iyo wasaarad ahaan iyo ciidamo ahaanba waxaan ku soo koobayaa ujeeddada aynu leenahay waxa weeyaan qodobka aanu sheegnay ah dardargelinta dakhliga gaadiidka iyo isku hubinta sharciga gaadiidka waxaanu gobolka Togdheer ka daafuraynaa oo ka bilaabaynaa ololaha la dagaalanka sharci darrada gaadiidka maadaama ay saa tahay shaqada aan bilaabayno waxaan ka codsanaynaa shacabka gobolka Togdheer inay la shaqeeyaan oo nagu garab siiyaan shaqada aan qaranka u hayno waxaynu maanta u joognaa ibafurka ololaha la dagaalanka sharci darrada gaadiidka dalka ee magaalada Burco ee noqotay magaaladii koowaad ee ololaha wada jira ay ka qabanayaan wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka iyo wasaaradda maaliyaddu ujeedada ololahan laga leeyahay waxa weeye sidii sharciga loo waafajin lahaa dhammaan gaadiidka ay ka dhiman yihiin adeegyada shuruucda wadooyinku waxyaalaha awoodda la saarayo waxaa ka mid ah liisan la'aanta inaan gaari aan liisan aan lahayni aanu jidka saarnaa karin waxaa ka mid ah cashuurta waddamarista waxaa ka mid ah la dagaalanka rarka saayidka waxaa ka mid ah lahaanshaha buugga taarikada iyo taarika la'aanta oo waxaa jira baabuur ay taarikadu ka luntay kuwaasoo hal beer lambar leh kuwaasina lama ogola oo waa la dagaalamayaa inta ay hawsha socoto waxaa kaloo ku jira dib cusboonaysiinta liisamada shirkadaha gaadiidka oo magaaladana ka howlgala oo wixii liisanku ka dhacsan yahay iyaguna ay dib cusboonaysanayaan hirgelinta kala wareejinta bajaajta iyo liisanada bajaajta oo iyaguna halkan yaalla iyo buugoogaba oo ay ku diyaar yihiin magaalada Burco wasaaradda gaadiidka waxaa kaloo iyaduna dhaqan gelinaya buugga dhaqdhaqaaqa gaadiidka dawladda oo ay la doonayay markii u horeysay maadaama Hargeysa laga daafuray in iyaduna gaari kasta oo dawladdu ay leedahay oo taarikada iyo buugga dhaqdhaqaaqa u lahaado marka muddada ololuhu socdo oo bishan imika aynu joogno 12keeda ilaa 22keeda iyo wixii bisha ka dhimanba uu socod doono waxaanu ku boorinaa bulshada sharafta leh iyo gaadiidada reer Burco inay u dhagan nuglaadaan sharciga sidoo kalena ilaaliyaan shuruucda waddamarista maanta waxaanu ilaaminaynaa waa olole cashuurada ku wajahan gaadiidka ololaha cashuurada gaadiidku ma aha tii koowaad ee maanta aanu ilaaminay waa markii labaad ee gobolka ku soo noqonay bil ka hor maanta waxaanu ilaaminaynaa waxa weeye waa fulin digniintii way soo hadhay maanta waxa weeye waa fulintii in la fuliyo aanu gaadiid bala cashuuri socon karin oo la xareeyo waayo soo dhamaatay digniinihii iyo ganaaxyadii marka maanta waa fulin baanu halkan u taaganahay in la fuliyo haddii alla ka dhigo dhammaan gaadiidleyda aan cashuurnayn ee wadanka ku jirta gobolka Togdheer waxaanu faraynaa
adigoo aan lagu soo qasbin adigoo xorriyadaada haysta inaad soo cashuurto gaadiidkiina oo idin tagtaan xafiisyada cashuuraha bariga gobolka wixii ka dambeeya waa khasabka waa cashuurta waqtigeedii qaabsiga tahay intaa ka hadhay sanadkana socon doonta gobolka waan uga mahad celinayaa sida fiican ay uga qayb qaateen cashuurahoo dhan meel fiicanna ay gobolku marayo haddii la ka dhigo aan ugu mahad celinayno ciidamada kala duwan dhammaantoodba ay dakhliga gobolka oo sare u qaadmay muddooyinkii dambe ay dhammaan ay la wada leeyihiin dhammaan ciidankoo dhan oo kala soocayn insha Allah bismillaahi kariim waxaan u mahad celinayaa dhammaan dadweynaha gaadiidkooda xilligii loogu talagalay cashuurtay waan ugu mahad celinaynaa inta kalena maanta wada hadal ma jiro qasabkii bay gaadhay oo fulin bay maraysaa wayna gaadiidkiina soo cashuurtaan haddii la yiraahdo togdheer maanta waxa ka bilaabmaya ololaha la dagaalanka gaadiidka sharci darrada ah oo ay ka bilaabayaan wasaaradda gaadiidka iyo wasaaradda maaliyadda si wada jira iyada oo gobolada Soomaaliland oo dhan la wada mari doono oo maanta bilow ay tahay waxaan aad ugu mahad celinaynaa dhammaan mas'uuliyiinta wasaaradda gaadiidka iyo wasaaradda maaliyadda oo arrinka sidii dakhliga si fiican loo soo xareyn lahaa falowgeed qabtay maanta waxay ka bilaabmatay gobolka Togdheer reer Togdheer waxa maamul daadejintii madaxweynaha ayaa la fulinayaa liisankii waa in liisankii ay wada qaataan dhammaan darawalladu ama bajaaj ha ahaadaan ama ha ahaadaan gaadiidka kale iyada oo weliba loo fududeyn doono insha Allah ID cardkii ay u baahnaayeen oo loo keenay degmada dhammaantiin waxaan idiga codsanaynaa inaad ciidanka si sharaf leh ula shaqeysaan si sharaf lana dakhliga u soo xarisan insha Allah kilibka iyagana wuxuu daaran yahay dardangelinta cashuurta gobolka Togdheer muwaadiniinta gobolka Togdheer ee cashuur bixiya awalan waa u mahad celinaynaa muwaadin kastoo cashuurta iska bixiya iyo mid u diyaarsan inuu bixiyo labadaba waa u mahad celinaynaa waxaanu kilibkan u diraynaa muwaadinka weli cashuurta ku dhiman tahay ama gaadhi ha wato ama meherad kale ha joogo waxaana muwaadin kastoo gobolka Togdheer ku noolayna iyo nawaaxigiisa laga codsanayaa waqtigii fariimaha iyo muwaadin iska soo bixi cashuurta waa la dhaafay waa waqtigii fulinta askari kastoo buluusa oo gobolka Togdheer ka tirsan ciidanka ilaalinta cashuuraha gobolka Togdheer ciidanka nabadgelyada ciidanka buluuska ee kaantaroolada jooga ciidanka buluuska ee jooga saylada burco ee xooluhu keenan gaadiidka halka isagoo bilaa cashuura dhammaan mas'uuliyad baa inaga saaran cashuurta qof kasta oo gaadhigiisu bilaa liisan bilaa cashuur wada maris kala wareejin cashuuri ku dhiman tahay waxa amar ku qabtaan in la keeno xafiiska waaxda cashuuraha ee gobolka Togdheer labada ciidanka traafikada iyo ciidanka cashuuruhu way wada shaqeynayaan shaqaana ka wada dhaxaysa qolada kala wareejinta lagu leeyahay waxaan uga digayaa waxa iman doonta baan kori traafikada haddii uu gaarigaasi shil galo ninka shilka ku galay iyo liisanka ninka buuga ku qoran labadaba in la soo xidho oo kaana lagu soo xidho cashuur ku baaqatay baan kori dembi qaran ka galay nin walba gaarigaa kala wareeji waa digniin dhammaan dalkoo dhan waxaan uga digayaa in arrintaasi qof buuga ku qoran inaanu jirin baa kuri gaariga haddii dembi lagu galana isaga la soo qabanayo marka waxaan idinka digaynaa inaad bugaagtiina kala wareejisaan oo nin walba gaarigaad iibisay ka daba tago si aad isaga wareejin le falowgeed gal taasina waa taa waxaa prioritiga aynu saaraynaa waxay noqonayaan imika cashuurta liisamada iyo cashuurta kala wareejinta ayaynu u baahanay inaynu imika dardar gelinno oo hawshoodii la bilaabaya hawshaas waxaan dadweynaha ka codsanaynaa inay gacan nagu siiyaan haddii dadweynuhu aanay nala shaqayn oo cashuurta diyaar loo noqon wax soconaya ma jiraan ciidankaa lala shaqeeyo ololahaasaa bilaabmaya dhammaan ciidanka booliiska ee gobolka Togdheer joogana waxaan ku wargelinaynaa inay garab taag sameeyaan oo ciidankaa lala shaqeeyo gaadiidka iyo taraafiga wargaaraa ka dhaxeeya waxa laga hadlayo ee halkan cashuurta laga hadlayo boqolkiiba 95 ciidanka nabadgelyada wadoonkay waajib ku tahay inuu gaariga qabto oo dhigo baarkin gareeyo haddii sharcigiisa wax ka siiyay waa shaqada loo qorto 114 qodob buu ku shaqeeyaa gaadiidkay ka hadlaya iyo shuruucdiisa hore halkan aynu maalin dhowto ku kulannay hawlo ganaax iyo bugaag baynu daahfuray way socotay maantana waa kama dambaystii sidaa la sheegay gaari kasta oon cashuur lahayn magaaladeennan 4,000 waxbaa dheer gaadiidka bajaajka jooga waxaa jirta waa ii diiwaan gashayin
halkii gaadhay soo galaa magaalada buug halkan uu igu yaallaa waa gaadiidka xagga cashuuraha ugu liita weeye macnaha waxaad mooddaa inaynu u isticmaalnay wixii inaanay gaadiidka ka mid ahayn gaadiidkay ka mid yihin waa gaadhi wuxuu la mid yahay gaadhigaa kale ee waddada maraya waxa allaala wixii ka dhiman waa lagula xisaabtamaya cashuurta ninkii bixin waayena dee gaadhigun baynu dhiganaynaa kii gaadhilana gaadhigaynu dhigaynaa kii kala wareejin laga rabana dee waynu dhigaynaa waxaan idiin ballan qaadaynaa inaan idinkula shaqayno gobol ahaan hadday tahay ta dowladda hoose hadday tahay ta maaliyadda cashuurta la bixiyo cashuurta la bixiyo waa arkaysaan halkaas sidaa taliyuu inoo sheegayay gaadhigaasi hadduu wax soo galo dee ninkii ku qornaa ayuunbaa la soo xidhaya haddadan bay yaallaan qaar haddadan weliba anuu qolo gaara baan u sii digaya nimanka nootayooyinka haysta nimanka nootayooyinka haysta horena shir baanu ula galay waa halku ka soo bilaabo kala iibsigu ka soo bilaabo nootayooyinka digniintii ugu dambaysay baan maanta aan u bixinaya waxa weeyaan cidina waxba ma iibsato haddaanay nootaayo kala qoran laakiin taasi sharci maaha haddaan cashuurtii la bixin haddaan gaadhigii la kala wareejin haddaan mulkiyaddii guriga la kala wareejin oo intaba ay cashuuri ku waajibayso iibkaasi ansax maaha waxaan dadweynaha u sheegayaa nootayooyinkay tegayaan ee ay wax ku kala iibsanayaan inaanay warqaddaasi sharci u noqon doonin buuggii gaadhiga iyo mulkiyaddiisii ha la wareejiyo dhulka la kala iibsado laftigiisa cashuurtii ku waajibtay ha la kala wareejiyo waxaan baaqi u dirayaa mar labaad iyo mar saddexaad halkuu iibku ka bilaabmaa waa nootayooyinkee horena ballan baynu u lahayn laba nootaayo hore liisankii baa laga qaaday intii shirkeenna ay gaadhayso inta u dhaxaysa wixii aanu ku aragnana waanu ka qaadaynaa liisanka ninkii ashtakoon lahaye ninkii qaylin lahaba